waxaa xalay gelenkii dambe buuraleyda weeraaro oo u dhow deegaanka Yogoori oo hilaadii Laascaanood u jirta ilaa 70 kiiloomitir ku habsaday hal gantaal oo aan la garanayn meel allaale iyo meesha uu ka yimi gantaalkani ayaa dad goobjoogayaal ahaa oo iyagu halkaasi ku sugnaa iyo waliba kuwa ku sugan magaalada Laascaanood guuxankii uu halkaasi reemayay gantaalkaasi iyagu indhahooda ku arkay ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in ay ku arkeen indhahooda arintani ayaa inda sarcaadna maxaanu arkayni iftiin bawda noqotaarigu arlig waa markaas qiyaasta waan isla weeyay giig marka lagu dhacay xilli ma yahay habeenka casar liiq bay madiin muuqday soo markaysa wax xagan oo soomaana arkay nololkiisa iyo wacwacdiisa ee miyuu waalan yahay saasaanu eegaynaa Allah bisin tala marag meel fadhiyay isku soo tala galay waabrin baa gantaalu markaa way badan yihiin magaalada Laascaanood bay sida qashka ka soo dulmareen waxani warkana marquru hayo oraya saa u wehlay waa marka ma casaan boo anaga istusnay markaa waxa halka maraya waad istusayna wixii dama waa gart mar dambo in doora ka dambeysay halka sanqar ka yeedho meesha xagee dhowda hadda sanqar weyn bay meesha sanqar weyn la weynada anagu de marka sanqar iyo aragtida waa kala dambeysay waa gart in badan bay kala dambeysay waa gart waan isku qabana waxaan war ma waraab korba war ma Yogoori ba war ma Tuulo Samakaaba warna baan wahay ma fahanti marka ilaa halka ka muuqda iyo wax xabada caadi sida xidigoo kala waa waxa ahaa moogta waa gart mar dambe halkan mursal suurad iyo meesha ugu yimaadeen warniyo wax kala harharayo haayo marba oo kala harayo waa waxa ahaa moogta laakiin xidigtaas arkay wax xidigta damar qoyay yaa kaas uga qarxay wax xabadka ku soo baabay wax baaleeday ma ka dhabaaniyo arintani ayaana naxdin weyn ku keentay dadyowga deegaamadaasi ku kala nool oo iyagu aan horay u arag gantaal noocan oo kala ah balse waxay arrimahani ku tilmaamayaan kuwa khuseeya ciidamada haatan u soo tafaxaytay sida ay la dagaalanka adag ula geli lahaayeen kooxaha xagjirka ee al-shabaab qaar ka mid ah mas'uuliyiinta degmada Yogoori ayaa halkaasi socod ku tagay iyagoo eegaya xaaladda dadyowga ku nool halkaasi iyo wixii ay kala kulmeen ilaa hadda lama garanayo cid allaaleeya cidda ka dambaysa falkani isla markaana amaba loo aanayn karo halka ay gantaalahani ka yimaadeen waxaase cabsi xoogan ee ay ku timi dadka ku nool guud ahaan gobolka Sool waxa in dhaweydba laga maqlayay duleedka magaalada Laascaanood xilliga habeenkii diyaarado guuxooda lagu arkayo magaalada kuwaas oo aan la garanayn halka iyo goobta ay sida rasmiga u socdaan amaba ay ujeedkoodu yahay Cabdiqani Xasan Faarax Cabdiqani Gadari TV-ga caalamiga ee Universal TV magaalada Laascaanood